kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta ciyaaraha waa khabiiro mataqaanaa waa khabiiro sports waxa ila fadhiyo Axmed Cagayare iyo Maxamed Axmed oo isaguna loo yaqaan ama ku qaadeen geelqaad oo wada garanaysa waa ciyaartoy hore labada mataqaanaa falanqeeye waxaan galabta falanqayn doonaa ama waxaan maanta falanqayn doonaa haduu la yiraahdo ciyaarta galabta ka dhici doonto garoonka Qansax ee wareega lugtiisa labaad iyo waliba ciyaarta shanaad ama geemka shanaad oo wada ciyaari doonaan labada kooxood ee kala Elman SC iyo waliba SBC waa Elman iyo SBC labada kooxoodba kabtanadooda waraysiyadoodii horeba u soo daawateen wareega koowaad wareega labaad taageerayaasha labada kooxood ayaa miiska noo saaray Elman waxa taageerayo ama wato ninka la yiraahdo Maxamed Axmed Geeldon ma taageeray halka SBC na uu wato Axmed Cagayare waa ciyaar kulul oo galabta la wada filayo cid ay guusha raacdo labada kooxoodba waa laba koox oo kooxda kale ay leedahay leeyahay guushana iskale dooda galabta ayaan u fadhinaa iyo saaxiibaday Axmed Cagayare iyo waliba Maxamed Geeldon soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa saaxiibkiin waa walaalkiin Maxamed Lafagri waa tahay Cagayare waad maqlaysaa mataqaanaa galabtu waxa wada ciyaari doono labada kooxood ee Elman iyo SBC oo adigu SBC aad ka taageerto yaad isleedahay galabta guush way raacdo yaad raacin baahan bi SBC guushan iskale galabta ma adig wada ninka saaxiibkii waxa malaysaa inay soo koto inaan dhibco hada ka qaataa ka dhacdina ma isdaji SBC guushan waa koobkan sanadkan inaan meel fiican ka gaarnaa doonina taariikhda inaan xusto lugta hore si fiican baa ku soo badinay alxamdulillah lugtan labaadna waxaan rajeynayaa inaan sidii si lamid ah u soo badino ninka saaxiibkii hadda qosolkiisa dhool cadeyntiisa u jeeda waxa ka dhacsan Elman baa team weyn raggan waa yar yihiin team ciyaartoy yar waaye rag professional ah wadata wax noocaas ah ku jirto laakiin garoonkaas galabtayto ciyaartoydan dardaaran waa iga qabaan dadka maamul ahaan coach ahaan ciyaartoy ahaan lijan ahaan nin walba si ahaan waa u soo dardaarmeen waxaan ku baraarujinayaa 90% lugta hore sideedoo kale inay noo noqoto lug final sideedoo kale inay noo noqoto on Elman Bruno fiican usla dheelo Bruno qurux badan ciyaartaasna Elman inaan ka badinaan rajeynaa insha Allah coachki iyaan gina aad baan u dardaarminaa inuu ciyaartaas uu ka dhex muuqdo sida maalin hore too kale Brunoyaashan aan ku xisaabtano Elmanna aan sida ay maleynayaan ay isleeyihiin waad badinaysaan dadka loo saadaalna si ka duwan inay noqoto aan Elman dhinac kale ciyaarsi inaan u badinaan rajeynaa waa tahay Axmed Cagayare waxa soo taageertay Makala waxa soo taageertay Bihajista ama Balad Xawista waxa taageeraysay kooxda Qansax oo shalay mataqaanay galab ciyaartay yaa taageeraysay xalin waa ka soo bilaabay xalin waa ka soo bilowday labada kooxood oo galab walba ciyaaraya koox baad wadataa aad baan ku fahmay saaxiibkay soo dhawow adigana Maxamed mataqaanay Geeldon saaxiibkay wuxuu ku leeyahay Elman wuxuu yiri kabaan la dul marayna saaxiib horta saaxiibkay waa saxan yahay oo hadda lama dhahayo nin waa saan hore kugu sheegay garoonka marka la galo ba muhiimada ah marka hadda waan falanqeynaynaa baalka dad falanqeysid hadda marka ayadoo saas Elman iyo SBC Elman iyo SBC miiska wada saar Elman iyo SBC soo miiska ma saarin Elman ciyaartaas waxa uu fadhiyaa guul lama taabtaan wayba baqa gool lama taabta rogooro iyo mangata iyo gool cunay ma jirtaan ku lama taabtaan waa mideeda kale physical ciyaartoyna waa isku dilaa adduunka Elman hadda ciyaartoydan wata waa aragtay gadaal waa ka dhisanahay saddex dhaxtaan waa aragtay waa Baka waa Insian waa baalkii Fitaaxi hore waa aragtay dadka tuuran marka ciyaartoy ahaan horta waa nasiib ma sheegin laakiin ciyaartoy ahaan xaq dhan walba waa 100% ka ah coach fiican oo aad u dadaal badan noo wata Harun Maxmed saaxiibkii coach halis alle waa coach halis ah waa ninaan saaxiibanahay marka asxaabta Elman iyo taageerayaasha Elman 100% aad u salaamaya guul fiican ay nagu soo dhamaanaysaa lugta saddexaadna annagoo iska raaxaysaneen baan iska adeynaa waxba rajaha ka qabna waxaad baleedahay lugta koobaad waan soo guuleysanay laba guuleysanaba saanaba ku guuleysanaba hay ciyaartaad waa galabta wali lama gaarin ugu ciyaartaas waa meel baan dhigan annaka
ka elman ahaan hay rag yaraan male xisaabta ku dartay haa rag yaraan male banooni waa cadaan iyo madow laakiinse xag fisikaal iyo xag banooniba ani meel baan ku dhigtay wuxuu leeyahay rag yaraan malaha laakiin magacana waa ku dilaynaa dadka oo goolkibaha marka uu maqlay hebel baa banooniga soo wato ciyaartooy la yaqaana wuxuu leeyahay xaaladda adkaanaysa haa wuu qalqalayaa buu leeyahay marka magaca kooxda ay wadato iyo ciyaartooydan wadan ya halis uu ku leeyahay ma ninka saaxiibkii waa maasan yahay ciyaartooydiisa hadda ugu magacaabay sida baakayo kale dheerarkaa siraayo wuxuu is leeyahay kolley waa physically wax baa jiro laakiin ma arka axmed iyo shukri iyo cusmaan iyo ragga annaga noo dheelaya ma arko kolley oo lugta hore lagu soo badiyey faataxa kumaan iman meeshaan waxaan ku nimanay awood iyo wax muuqdaan kusoo badinay haddana waxaan rajaynaynaa maya waa isku aadkaa sida noqday anaga waan jeclayn inaad lugta koowaad in elman lagu soo aado waayo anaga maba inaan noo hormartaan inoo dambaysa aan noo hormartaan isku kamid anaga maba riinba inaan tiim kale ku aadno aad leedahay wuu yaryahay elman lugta horaan barrabnay qoratuurka aan u nimaan laakiin waa weynay haddana waxaan rajaynaya insha allah inaan dardaaranka naga saan hore kugu sheegay inaan garoonkaas aan kasoo dhex muuqano elmanna aan meesha ayada ku reebna ayagoo filayn ay halkaas ka baxaan insha allah lugta ku xigtan waxaan iskugu imaanaa meeshaan ninkaana wareysanaa waa tahay lugta wuxuu ku yidhi lugta xigto meelay elman ku dambayso baan wareysan yaan isu joognaa galabtana waa wada markhaati waa wada fiirsanaynaa buu ku leeyahay haddii lagaa raayo ka war haddii la iga raayo aniga geela oo elman wato horta waa iska nasiib laakiinse u malayn maayo wixii baa iska nasiib oo cadaan iyo madow waaye laakiinse u malayn maayo inay rigooro tagto ma sheegin rigooro inay tagto rigooro la iga badiyo ma sheegin laakiinse banooniga ani aana arkay iyo ragga hadda aan ku xisaabtamayo haddii la iga badiyo banooniga iska caa laakiinse inay awood la iga badinayo garoonkaas laguma soo bandhigayo sababtoo ah ragga ani aan wato waa ragga booboc soo reebay ragga booboc soo reeban booboc oo tiimka naadiga koowaad ama naadiga labaad oo bilaxa waa ani soo reebay marka SBC san ugu dahay ogow waad maqlaysaa SBC ugu dahay buu ku leeyahay qoratuurka hadday laba tiim mar isku aadaan elman iyo booboc hadda isku aadeen oo kale laba marba labada mid baa badin lahaa laba tiimba weyn ahaayeen laakiin laftirkeyga waan jeclaa inaan elman iyo booboc aan isku aadno anigaba aan saas oo kale labadooda midkood inuu xilligaan oo kale banaanka inuu fadhiyo oon aniga lugteeda kusoo reebto laakiin dhiman hadda waad iisii adeegtay dhiman ahaan waa laba tiim weyn baa mid baad iga sii reebto waad ii fududaysa haddana adaan iska kaa leexinaa waa wax sahlan taas waa libin aad ii keentay anaad iga sii reebto culayskada booboc waad iga sii reebtay laakiin shaqadeeda laga rabaa laakiin lugtan labaad waxaan rajeynaya inaan adna aan iska kaa sii horleexiyo sidaan ugu sii gudbo nimanka kale iga horeeya ayagana bal adina iska ka horleexiyaan rajeynaya insha allah waa tahay daawadayaal barnaamijkeeni galabta intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa maadaama aad moodo dooda inayba naga sii kullaanayso raggaan kala celin kara maaha galabta ciyaarta iyo koox walba waxay soo bandhigtana markhaati baan u wada nahay waxaan haddana idiin sheegahayaa ciyaarta marka ay dhammaato labadaa nin kii guulaystay kii laga guulaystay labadaba kamerada hor keeni doonaa garoonka dhexdiisa halka kabtanada aan keeni jirnay ayaga ayaan keeni doonaa insha allahu tacaala aad ayaad umahadsantihiin barnaamijka xigo iyo cayaarta berri galab oo waraysi noocaan oo kale aan idiin soo bandhigi doono labada kooxood ee wada cayaari doono maalinkaas ama maalinta berri ah waa Horseed iyo MBC waraysigeeda ayadan halkan ayaan kuu soo gudbin doonaa waana wareegga labaad labada kooxood oo lagu soo xiri doono aad ayaad umahadsantihiin oo walaalkiin la fagari. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.